wararkii ugu dambeeyna waxay tilmaamayaan naadiga Barcelona ay ka dhisan wadankaasi Spain inay qorsheynayso in weeraryahanka wadankaasi Ingiriiska iyo waliba kooxda Tottenham in dalab ay ka gudbiyaan isla markaana weeraryahankooda da'diisu ay sii kordhaysay Luis Alberto Suarez oo tan iyo intii uu yimid dhaliyay in ka badan 150 gool markaa uu ku sugnaa 2014 ilaa iyo xilligan oo uu ka talinayo qalcadda Camp Nou. dhaliyaga reer Uruguay oo wax badan la qabsaday Barcelona balse da'diisu marka la gaaro January waxay gaari doontaa 32 sano taasoo Barcelona ka yeelaysa in mustaqbal ay ka raadsato. Daily Star ee laga leeyahay wadankaas Ingiriiska ayaa waxay ku waramaysaa in Harry Kane uu yahay hadafka koowaad iyadoona la ogyahay in ninkan si weyn u doondoonayso naadiga Real Madrid. Barca ayaa qorsheynaysa inay bixiso 200 milyan oo euro si ay u hesho ninka reer Ingiriis ayaa 13 gool u dhaliyay marka la eego Spurs 20 kulan uu ciyaaray tartamada weedil. waxaa ninkan uu kamid yahay xidigaha ugu bandhiga cajiibka ee marka la eego caalamka weeraryanada ka ciyaara. 25 jirkan ayaa 153 gool u dhaliyay 233 kulan uu ciyaaray tan iyo intii uu yimid naadiga Tottenham Hotspur isla markaana lagu soo daray kooxda koowaad.